kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya. Qodobada maanta barnaamijkan ku soo qaadi doonana waxaa kamid ah wararkii ugu dambeeyay ee siyaasadda Soomaaliya oo uu isbedel ku yimid iyo shirkii doorashooyinka looga hadlayay oo qabsoomaya. madaxweynayaasha Dani iyo Axmed Madoobe oo ku soo wajahan Muqdisho saacadaha soo socda iyo xog laga helay cidda ka dambaysa in madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland ay yimaadaan Muqdisho. haddaba halkay degayaan yaa sugaya amnigooda warbixino iyo xogo ayaan idinkaga soo gudbin doonaa insha Allah. madaxweyne Farmaajo oo tanaasul weyn u sameeyay madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland filla Soomaaliya oo laga wareejiyay martigelinta shirka dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada iyo xarun kale oo loo diyaariyay in lagu qabto. wararkeena kalena waxaa kamid ah su'aalo ka dhashay qaraxii ka dhacay maqaaxida Luulyamane iyo mucaaradka oo hal arrin soo bandhigay iyo madaxweynaha Puntland oo laga war helay isbeddello waaweyn oo uu ku sameyn rabo hay'adaha ammaanka Puntland iyo maamulka gobolka Bari. qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa barnaamijka insha Allah. waana subax axada 7 bisha 3 ee Maarso sanadka 2021. barnaamijkan wararka Soomaaliya waa mid aan ku soo gudbino dhammaan dhacdooyinka dalka. haddaba daawada ka qayb qaado dib u dhiska dalka inagoo ka dheeraanayna wax walba oo dib inoo celin kara. waad ku mahadsantihiin inaad taasna la fahantaane fadlan la faafiyo wararka oo gaarsiiyo saaxiibadiina idinkoo ku sheergareynaya baraha bulshada. mahadsanidiin aynu ku bilowno wararkeena. waxaynu ku bilaabaynaa wararkii ugu dambeeyay ee siyaasadda Soomaaliya oo isbedel uu ku yimid iyo shirkii doorashooyinka looga hadlayay oo qabsoomaya. wararkan helayno ayaa waxay sheegayaan in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu qorsheynayo isla marhaantaana uu tabantaabinayo sidii mar kale isugu imaan lahaa shir u dhaxeeya madaxda dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada dalka. madaxweynaha ayaa waxa uu qorshihiisu yahay sidii dalka loo jihayn lahaa isla marhaantaana doorasho dhammaan saamilayda siyaasadda dalka ay ku qanacsan yihiin ay u qabsoomi lahayd maadaama uu yahay mas'uulka ugu sarreeya dalka isla marhaantaana wax laga weydiinayo aayaha dalka iyo masiirka dalkaba. madaxweynaha dalka ayaa la sheegayaa in uu goor dhow ku dhawaaqi doono shir kale oo isugu imaanayaan madaxda dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada kadib markii shirarkii uu ku baaqay muddooyinkii la soo dhaafay ay baajinayeen madaxda Puntland iyo Jubbaland oo siyaasiyiinta qaar ay sheegayaan in ay laf dhoongasho ku noqotay amaba ay ku noqdeen arrimaha doorashooyinka dalka iyo in la meel mariyo heshiiskii 17 Sebtembar ay iyagu wax ka saxiixeen. filla Soomaaliya ayaa dadaal ugu jirta sidii shirkaasi u dhici lahaa. dhinaca kale madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland Axmed Madoobe iyo Saciid Dani ayaa waxaa la sheegayaa in ay ku soo wajahan yihiin saacadaha soo socda magaalada caasimadda Muqdisho. xog uu helay warqad TV ayaa waxay sheegaysaa in maalmaha soo socda ilaa iyo biri iyo wixii ka dambeeya madaxda ee Puntland iyo Jubbaland in ay imaan doonaan magaalada caasimadda Muqdisho. balse ilaha aan xogtan ka helnay ayaa waxa ay tilmaameen in ay degi doonaan xarunta Xalane oo ay ku sugan yihiin hay'adaha qaramada midoobay isla marhaantaana ay diideen in ay amnigooda sugaan ciidamada dawladda federaalka ah ee Soomaaliya. waxaa la sheegayaa in Puntland iyo Jubbaland ay qorsheynayaan in ay ku sugnaadaan inta shirka uu ka qabsoomayo xarunta Xalane ee magaalada Muqdisho ku taala. wararku waxay intaasi ku sii darayaan in shirka uu ka dhici doono xarunta Xalane isla marhaantaana madaxweynaha dalka arrintaasi uu aqbalay sida xogaha aan helnay ay tilmaamayaan. Puntland iyo Jubbaland ayaa horey waxay isaga diideen in ay yimaadaan Muqdisho kadib markii uu shir ku baaqay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya waqtiyo kala duwan waxaana ugu dambeeyay shirkii uu markaasi cilaamiyay Khamiistii hore oo aynu ka soo gudubnay kaasi oo ku sheegay in loo baahan yahay inay yimaadaan madaxda Jubbaland iyo Puntland maadaama madaxda kale ay iyagu si weyn ula dhacsan yihiin siyaasadda madaxweynaha qaranka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. waxaana haatan lagu soo warramayaa in markaasi beesha caalamka ay cadaadis xoog la saartay Axmed Madoobe iyo Dani isla marhaantaana ay ku qasabtay in ay sida ugu dhaqsiyaha badan ku yimaadaan Muqdisho si ay uga qayb galaan shirka lagu xalinayo arrimaha doorashooyinka dalka Soomaaliya. waxaana shirkan uu ka qabsoomayaa sidaan idinla wadaagayba xarunta Xalane oo ay ku qanacsan yihiin Puntland iyo Jubbaland. isla wararkaas ee arrimaha doorashooyinka ayaynu ku guda jirnaaye madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa tanaasul weyn waxa uu sameeyay maamulada Puntland iyo Jubbaland. filla Soomaaliya
ayaa laga wareejiyey martigelinta shirka dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada waxaana loo wareejiyey shirka in lagu qabto xarunta xalane ee magaalada muqdisho. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya oo horeyba looga bartay in uu tanaasulaad u sameeyo maamulada Puntland iyo Jubbaland sida uu isaguba sheegay ayaa iminka mar kale u tanaasulay waxaana tanaasulkan lagu sheegayaa inuu yahay mid aad u weyn marka loo fiiriyo kuwii hore maadaama uu aqbalay madaxweynaha jamhuuriyadda dalka in shirkan uu ka dhaco meel ka baxsan filla Soomaaliya. arrintan ayaa lagu micneeyay in madaxweynaha dalka uu diyaar u yahay in dalka uu la jiheeyo isla marhaantan ay doorasho ka dhacdo waxaana madaxweynaha uu muujinaya biseel siyaasadeed marka loo fiiriyo madaxda kale ee iyagu wax ku leh masiirka ummadda iyo dalka Soomaaliyeed. waxaana wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan in madaxweynuhu arrintaasi uu aqbalay isla marhaantan ay macquul tahay in shirka uu ka dhaco xarunta xalane ee magaalada muqdisho sidaasina ay shirka uga soo qayb galaan madaxda Puntland iyo Jubbaland oo iyagu si weyn markii hore u diidanaa in shirka uu ka dhaco filla Soomaaliya waana laga wareejiyey madaxtooyada dalka martigelinta shirkaasi. waa hagaag barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya ayaad la socotaan waxaan markaan aadaynaa su'aalo ka dhashay qaraxii ka dhacay maqaayadda Luulyamani la yiraahdo iyadoo mucaaradkuna ay markaasi soo bandhigeen hal arin oo ku saabsan qaraxaasi. waxaa marba mar kasii dambaysa soo baxaya warar kala duwan oo ku saabsan weerarkii ka dhacay maqaayadda Luulyamani oo ku taala degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir waxaana soo xoogeysanaya markaan shakiga ay muujinayaan siyaasiyiin u badan mucaaradka. siyaasiyiintan waxay ka midaysan yihiin in su'aasha ah halka uu ka yimid ama la soo marsiiyay gaariga qaraxay maadaama ay wadooyinka xirnaayeen habeenkii qaruxu dhacay iyo maalinkeedii. ugu horreyn xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur oo ka mid ah siyaasiyiinta ka falcelisay dhacdadaas ayaa yiri waan bogaadinayaa in xogtan hore lagu bixiyay dadaal lana soo gudbiyay balse waxaa nasiib darro ah in iyada oo xogtan qatarta ah la hayo in ciidamadii amniga shacabka sugi lahaa loo adeegsado laguna mashquuliyo carqaladeynta shacab diidan dictatorship ee dalbanaya doorasho dimuqraadi ah una banaanbaxaya si nabad ah sidaasina dadkii loo dayaco waana dembi la iskula xisaabtami doono ayuu yiri. qoraalka xildhibaan Cabdullaahi wuxuu intaas ku daray waxa cajiib ah in ninkan mudaxileedkiisii dhammaaday xukunka markaasi jecel xataa uu kari waayay in uu u tacsiyadeeyo 30 qof ee lagu dilay Muqdisho. dhacdadan iyo dhacdadii xabsiga Boosaasoba waxay adkeynayaan hanti markaasi waa hanti ahayd in ay laba shabaab wada shaqeeyaan. dhinaca kale Cabdiraxmaan Cabdishakuur isaguna waxa uu yiri ciidanka booliisku waxay hayeen xogta la xiriirta in weerar argagixiso la beegsanayo maqaaxida Luulyamani ee markaasi la weeraray oo ay 25 ruux ku dhimatay 45 kalena ku dhaawacmeen. Allah u naxariisto intii dhimatay Allahna u boogadhayo inta dhaawac ah. ciidankii xogta ka hortagi lahaa waxaa loo adeegsaday heegan loo geliyay inay jidadka ka xiraan shacab si nabad ah u dibad bixi lahaa. argagixisadiina waa laga jeedsaday ciidanka waa inay diidaan difaaca kaligitaliska oo ay shacabka halista ka ilaaliyaan ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. in ka badan 20 qof ayaa ku geeriyootay qaraxaas waxaana ka dhashay dhaawacyada ugu yaraan 30 kale. mas'uuliyadda qaraxaas waxaa sheegatay Al-Shabaab oo iyadu sheegtay in qaraxaasi ay ku bartilmaameysatay saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. siyaasiyiinta mucaaradka ayaana arrintaasi iyagu walaa xoog leh ka muujinaya waxayna sheegayaan in amnigooda ay u baqayaan isla marhaantana ay la yaaban yihiin sida qaraxaasi uu u soo gudbay maadaama habeenka qaraxaasi uu dhacayay wadooyinka inta badan ay joogeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ee Soomaaliya wadooyinka qaarna ay ahaayeenba kuwa markaasi xiran. mucaaradka ayaa si weyn waxa ay uga soo horjeedaan dowladda madaxweyne Farmaajo waxayna qorsheynayeen in ay dibadbaxyo dhigaan arrintaasi oo ay haatan cabasho markaasi ka muujinayaan. ugu dambeynna madaxweynaha Puntland ayaa la filayaa in uu saxiixo wareegtooyin ku saabsan isbedel baaxad weyn oo lagu sameynayo hay'adaha amniga ee Puntland maamulka gobolka Bari iyo kan degmada Boosaaso. xogta la helay waxay cadeynaysaa in xilalkooda ay waayeen tarihii ciidanka sirdoonka waxaana lagu bedeli doonaa xubin cusub. warar ayaana sheegaya in la magacaabi doono Cabdisalaam Yuusuf.
taliyaha qaybta booliska ee bari ayaa lagu bedeli doonaa taliyo cusub waxaana loo magacaabaya Cabdiqaadir Jaamac Dirir sida xogta ay sheegayso gudoomiyaha gobolka bari ayaa xilkiisa waayi doona waxaana dib loo magacaabi doona Yuusuf Maxamed Wacays Dhedo duqa Boosaaso ayaa xilkiisa waayi doona waxaana kumeel gaar loo magacaabi doona duq kumeel gaar ah sida wararku ay sheegayaan taliyaha ciidanka asluubta ayaa loo magacaabi doona Admiral Cabdirasaaq Diiriye Farax waana sida xogaha aan helay ay markaasi tilmaamayaan qodobkaas ayaa ugu dambeeyay warkeena tan iyo warkan war la mid ah inta aynu dib ugu kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo